haddaadan adigu is aqoonin way adag tahay inaad adigu is hesho haddaadan adigu is qooninna waxaa fududaanaysa inay dadka kale kugu sheegaan wax aadan adigu ahayn soo hadday tahay successka guusha qofeed iyo hadday tahay successka siyaasadeed iyo hadday tahay successka qoyseed waa inay number 1 ka bilaabatay identitygaaga inside job inay tahay number 2 inay ka bilaabato waaye inay beliefkaas identitygaaga uu ka imaado adiga inuu ka imaado oo cid kale ka imaanin ana number 3 inaad ogsoon tahay ama aad ku meel garaysay tii had ugu horeysan ka hadlayo ah makeup ka markaas aad u baahan qofkee tahay adigu haddaad qofka aad tahay aadan garanaynin oo aan rabo inaan saddex waxyaalood qofka tahay kaaga sheego wax macnaa kuma sameynayso qofka aad tahayna waxay ku xiran tahay saddex wax qof ay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay qofkii aad shalay ahayd oo laga yaabo sabiga inaad ka ahayd not only jir ahaan bas maskax ahaan qofka maanta aad tahay ee aan la hadlayo ee kobaca iyo dhadhanka iyo dhibicda nololeed ay ku da'aysa ee isbeddelka ku jiraay iyo qofka aad noqon doonto berri ee dhaqankeeda maanta laga rabo inaad yeelatahay waa inaad ogsoon tahay inaysan qofuna sabinimadii uusan kula dhaqmin maskax ahaan ha ahaato da ahaan ha ahaato ma qof aad taqaanaa magaci ciyaalka ugu baxay weli loogu yeero laakiin weli aaminsan inay magacaas yihiin ciyaalnimadii ma qof baad garanaysaa maanta waxa ay ka shaqaynayaan lagu judge garaynayo oo aan weli loo gudbin inuu yahay dhakhtarka berri inuu loo yahay lawyerka berri inuu yahay wadaadka berri inuu yahay mustaqbalka ummadeeda berri ee maanta wuxuu ka shaqaynayo lagu qiyaasay haddii ilaahay yiraahdo berri gabagabada markuu gaaro markaan ku weydiinayo marka qofkee tahay who are you ha isku qiyaasin sabinimadii hana isku qiyaasin yaraantaadii waxaad isku qiyaastaa oo isku ogaataa qofka aad tahay oo u baahan tahay inaad nolosha ka gaartaa tusaale ahaan haddaad book akhrinayso oo rabto inaad ku noqoto professor inaad ku noqoto waa in lagu dhihi karo waaye professorkii soo socday ama professorkii imaanay